عبد الرحمن قرحنت غريها وتا قرحنت غريها كونتراكي قاتي ما بدليا تلو سو بدليا وقال الله هيا ماشي ما maxaa qurxinta guryaha loogu bixiyo ma bilaash ba daawadayaal videogan waxay sponsor gareysay Lusail Cafe oo ah cafeteria ku taala magaalada Hargeysa ka soo horjeedka xarunta gacanta ee caanka ah moolka weyn ee ku yaala keegageeda shaaheeda waxaan ku kofigeeda saloolkeeda ma kala dhacaan wali waxa leedahay meel hoosto private oo booking gareysan karto Lusail Cafe haddaba aan bilowno marka u horeysa shaqada koowaad ee aan bilaabay shed transformation kan ama bedelaadda shedkan waa inaan nadiifiyo marka hore xoqitaan inaan wixii dheer oo dhan jaro ilaa plaster gareynaya darbige kadibna PVA ayaan mariyay PVA badanaa lama isticmaalo laakiin aan waxaan u isticmaalayaa dhas badan baan kiciyay blue grit iyo xasal la isticmaalaa before plasterka laakiin saan waxaan u isticmaalayaa waan garanayaa dhas badan iyo waxbaan kiciyay si ay iga yara dejiso oo gripku u fiicnaado meesha plasterku igu dhegayo وكا كدي مركو قللي waxaan bilaabay qasitaankii plasterka oo ah hard plaster ama waxa loo yaqaan bonding plasterka koobaad weeyaan la mariyo brick ama waxa dhagaxa la mariyo weeyaan marka koobaad kadib ayaa dadana finishing plaster marinaysa laba kood oo ah marka hore scratch baad ku sameynaysaa si uu ka dambe kugu dhago oo bonding u sameeyo waxaan imika dhameynaya qasitaankii finishing plasterka first coat kun baad tusaya laakiin mid kalena waan mariyay two coats baan mariyay meeshan marka isagoo dhamaadana imika tusaya oo and 3 days baan sugaya kadibna si uu qalalo markaan imika dhameeyo plasterkan waad aragtaan daawadayaal plasterkii oo finishingkiisu beautiful hatta xoqitaan igama baahna waayo gacanta qofka ku xidhan tahay Farax Murtilo maxaad ka tiri qurxinta guryaha shirkadda loo qaray ka qayb qaado waa qurxinta guryaha weeyarukan subscribe-ka ku qabta farmada xamaya may ya daawadayaal imika waxaan qasayaa rinjigii aan darbiga marinayay oo ah marka hore 3 meelood oo biyo iyo hal meel oo rinjiga waxaan sameeyay undercoat baan sameeyaa iyo primer hoosta yani hoos mariskii wadiga arkay isagoo qalalay gool baan rinjiga caadiga markaan marinayaa saa aragtaan dushana waa madow damp seal ayay u baahan tahay laakiin inta ka hor waxaan horta isticmaalayaa caulking amaba inaan dhinacyada girgirrada oo dhan meelaha yar aan ifanka aan buuxiyo paintable caulking weeyaan waa la rinjiin karaa imika aniga damp seal ka isticmaalaya aan sealinka marinay waayo haddii kale rinjiga mar walba uu soo hoos maraya haddii rinjiga aan madowga maray marka madowga waa inaan seal garaya marka hore kadib ayaan rinjiga caadiga qabanaya sealinku wada cadaan noqonaya rinjigan waqti badan buu qaataa inuu qalalo waa sida gloss oo kale inta uu qalalayo waxaan bilaabayaa hoosta inaan dhulkan sibirka horta simo dhulkan concrete weeyaan inaan simaan rabaa uneven weeyaan waxaan isticmaalayaa plaster loo yaqaano muxuu ahaayay self leveling compound imika waxaan isticmaalay laakiinse markii hore waxaan mariyay PVA kadibna waan aniga sibirkii hadda ku shubay self leveling compoundkii self leveling compoundkan isaga simaya laakiin gacantan ku hagaajinay adigu shaqo si ay professional noqoto waa kolba waxay ku xidhan tahay laakiin adiga you don't need to inaad arrinkan samayso uma baahnid waad iska shubi kartaa isaga simaya wii qalalay waad aragtaan ilaa waxaan ka tagay 2 cisho si uu si fiican ugu qalalo anigu deetana imika waxaan setting out kii baan sameeyay ama diyaarintii marmarka saan u dhigi lahaa intaanad marmarka iska dhigin waa inaad siduu ku soo baxaya qurux badan aad sii qorshaysaa moogtahay marka professional shaqo aad qabanayso deetana waa aniga qorshay iyo kolba halkaad ka bilaabso marka qaar dhexda laga bilaabo marka qaar dhinaca kolba sidii ku habboon anuu halkaasaan ka bilaabay markaan tiriyay setting out kii sameeyay waad aragtaan marmarka imika markaan dhameeyo dhigitaankiisaan dhameeyo waxaan sameynayaa dhexda inaan buuxiyo oo aan sameeyo second stage-kii oo ah haddii la hamay groutingkii waad aragtaan marmarkii dhigistiisii oo dhamaaday 24 hours inuu qalalo weeyaan intaanad groutingka samaynin ama 48 hours adigu kolba waxay ku xidhantay area waniga groutingkii bila groutingku waa dhexda la buuxinaya walaalayaal dhexdaan buuxiyay wakaa isagii oo dhamaado finish up beautiful marmarkii oo dhamaaday weliba skating board marmarna aan u sameeyay hadda albaabba waxaan ka goostay daaqadii baan doonayaa bedelo oo albaab meel yaalo qurux badan oo wax fiicanaba deetana waan simayaa deetana waan hagaajinayaa hinjskii baan u jarayaa kadibna waxaan ku xidhayaa daaqadda oo daaqad baan uga dhigayaa markaan dhulka marmarkii dhigay albaabkii baa xidhmi waayay kadibna albaabkii bar jaro kadibna aan simo dib aan ugu xidho meeshii kadibna waan rinjiyeynayaa saasaan isaga ku dhammaynayaa insha allah waxaan idin tusi doonaa projectigan oo kombaniyada laakiin intaanan dhammayn kor waxaan hadda samaynayaa hanging shelves shelfyaan ugu xidhaya buugtii waxa uu qofkani saarto oo ma garanaysaa dee meesha wuxuu doonaya inuu ka dhigo office oo kale amaba meel wax ku dhigto You want to see the transformation? Odayaal meeshii oo dhamaatay transformation baan waday hadda waa transformed hadda way dhamaatay isbedel waan bedelay hadda way bedelantay waad aragtaan daawadayaal albaabku waa rinjiyeysan dhulku waa marmaraysan waa simnay waa marmaraysan darbi waa plasteraysan waa rinjiyeysan sealinku sidoo kale daaqad cusub waxaan ku dhigay eeshcala waydi ka arkay daawadayaal subscribe like and share baa idin waxaan ku dhaadii leedamkeeda leeyahay
wiilkan meesha ka camira wadinka dadka walwaalanba subscribe ta u saare rabbi salli calee maa idhi ya daawadayaal imika waxa kaliya ta u harsan qofka meeshan iskale waa inuu alaabtiisii soo dhigto uun oo kaarbidkiisii iyo kombiyuutaradiisii iyo buugtiya wixii insha allah daawadayaal waxaan idin hayaa bishaaro dhammaan dadka wadankii jooga waxaan idin leeyahay waanigii imika joogay 2022 gan hadda May baan joogay ma garanaysaa wadankii waxaana soo arkay shirkadahan waaweyn guryo waaweyn oo dadka lacag badan kaga baxday oo ay u sameeyeen finishingkii interiorka oo aad iyo aad low ah runtii ama aad iyo aad u hooseeyo oo yani shocking ah marka waxaan idin sheegayaa insha Allah mustaqbalka waxaan soo rarayaa shirkadeeda qurxinta guryaha waxaan imanayaa wadankii waxay iga heli doontaan Hargeysa adii Ilaahay idinkeeda leeyahay Burco Berbera Boorame Laascaanood Baydhabo ilaa Muqdisho meel kasta waan tagayaa ilaa Jigjiga marka waxay idin leeyahay dhammaantiinba meel kasta Soomaali deganta waa iga heli doontaan insha Allah markaan soo raro shirkadan ka soo guuro Ingiriiska waxaanan idin samayn doonaa inaan guryihiinii dhisnaa la xumeeyay dib u dayactirno oo dib u dhis ku sameeyno ama dayactir gudaha interiorka ama guryihii 8-tanadii 7-tanadii 6-tanadii guryi bariga hore la dhisay aan dib ku dayactirno ummadda Soomaaliyeed ku nool Ingiriiskana waxaan leeyahay hadii shaqo guriga dhan ah wada dayactiraysan ama guriga dhan wada qurxinaysaan yeedha soo garaaca numberka DCS hoos buu qorayay shaqooyinka yaryar badan ama sameeyay sida 2 qol 3 qol iyo waxa ay sameeyaan ama hal bathroom iyo sameeyaan ama waxa soo kale ولي أنيقا وين بحن برايو إلى غاية الله يا أحيا هرقيسة هذا فاطمة عبد الله كاهن المنطقية في اللاعبة الصومالية وفي الموسيقية وفي يعني كالقعلية وفي الهرقيسية وفي البلد وفي الألباب العدقية